بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بميل والبو الدنيا كي جوجتان waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xiisada dagaalada ka soconaya gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale hanjabaad culus oo la isdhaafsaday madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron iyo dowladda wadanka Iran oo isku dhaartay ciidamada ilaalada kacaanka dowladda Iran oo fariin cajiib ah u diray isla markaasna u dhacay hay'adda warbaahinta maamulka gumeystaha Israa'iil gaar ahaan dhinaca telefoonada maxay tahay fariinta ilaalada kacaanka ay shacabku la wadaageen warbixin cajiib ayaan halkan idinka haya dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa wacd ku maray falalka qalafsan ee gardarada xambaarsan ee Mareykanka iyo Iran ay ka wadaan gudaha wadanka Iran marna inaan loo dulqaadan doonin xagee buu maraya duulaankii Mareykanka xulafadiisu ay qorsheynayeen ee la doonayay in lagu qaado gacanka Hormuz wararkii ugu dambeeyay ay isla soo qaadan doona wadamada Carbeed oo iyaguna qaati kala taagan midba kale ayay basaasaysa adduun xumaaday ee gadhe waxa kale barnaamijku ku soo qaadan doona xogaga reer Falastiin ee Hamas oo qarka u saaran iyaguna in dagaalku ay soo galaan waa maxay sababta barnaamijka ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo aad baad u mahadsantiin soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysay fadlan oo aad kanaalkeena soo booqato ha mogaan inaad subscribe tiraado la wadaag saaxiibada muuqaalka aragtidaada ka dhibe aad baad u mahadsantahay soo dhawaada mar kale markuu ugu horeys aan ku horeen waa u imaan doonaa fariimaha dowladda wadanka Iran ay markaas gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ay u direen shacabka Israa'iiliyiinta hadda qof walba ayaa fariintaas oo telefoonadiisu gaartay marka waxa laakiin aan ku hormareynaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Iran Abbas Araghchi oo gor warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda wadanka Mareykanka dowladda wadanka Faransiiska weerar ku qaaday gaar ahaan madaxweynaha wadanka Faransiiska Emmanuel Macron ayuu ku tilmaamay mid mujrim ah isla markaana laba wajileyn baan ku haya wuxuu yiri dagaalada gobolka ka soconaya waxa uu tilmaamay mudane wasiir Abbas Araghchi waxa uu yiri markii la weeraray buuri shidaalka dowladda wadanka Iran oo Mareykanka Israa'iil ay weerareen shaqada ayaad ka daawanaysay ayuu yiri laakiin markii dowladda wadanka Iran ay taabatay buu yiri goobaha xasaasiga ah cadawga af labadiisa ayaad dhawaaqaysaa wadamada oo dhan ayaadna la xiriiraysaa waxaan u sheegaysaa buu yiri in adiga aad ka difaacaysid ama markaas xanuunka aad la dareemaysid maxay tahay buu yiri sababta shacabka wadanka Iran aadan xanuunka u la dareemaynin laakiin kuwa markaas khaliijka aad wadanka markaas aad u la dareemayso xanuunka haddii warkaagu uu dhab yahay wuxuu yiri ma labadeenba si isku mid ah ugu wada markaas tacsiyaysid isla markaana ugu xumaatay dagaalka gobolka ka soconaya waxaad isku dayaysaa buu yiri inaad madax isku geliso shucuubta muslimiinta laakiin taas Allah ma hadlay ayuu yiri Abbas Araghchi maanta dadka muslimiinta waa ka guureen waana ka gungaareen buu yiri makriga iyo fajash aad u maleegaysaa shucuubta muslimiinta ah ee ku nool mantiqada gobolka bariga dhexe anaguba Yurub iyo Mareykanka saddex kuma lihiin ayuu yiri ciidamada nagama joogaan waxaad halkan ka soo raadisay adoolalka u tihiin ma aha ayuu yiri danta dadweynaha dadka mantiqada degan wixii waa duulaan iyo gumeysid wuxuu yiri dul saar ayaa tihiin mar dhowna dadka idin qaadi doona ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran mudane Abbas Araghchi dhinaca kale waa u imaan doona sheekooyinka cajiibka ah ee ciidanka ilaalada kacaanka ay u soo direen maamulka gumeystaha laakiin aan eegno wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Shiinaha Wang Yi ayaa fariin hanjabaad u diray dowladda wadanka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil dowladda Shiinuhu waxa sheegtay marna in aan la aqbali doonin falalka gardarada ah ee lagu leynayo hogaanka u sareeya dowladda wadanka Iran waxaana ay Shiinuhu sheegeen muddo badan ay u fiirsanayeen kadib inaan la aqbali doonin qof dambe oo hogaamiye ah oo la dilo oo markaas wadanka Iiraaniyiinta wuxuu yiri dagaalka aad wadaan inkastoo markii horeba uu gardar ah hadana madaxda siyaasadda iyo qaa'idka ama hogaanka ugu sareeya wadanka Iran aad beegsanaysaan taasoo inaad joojisaan hadii kale dowladda wadanka Shiinuhu iyadana arintaasi indhaha kama laabo doonto maxaa laga wadaa dowladda wadanka Shiinuhu waxa laga wadaa in iyana leedahay adinkuba madax ayaa leedihiin waana naqaan madaxdiinu halka ay joogtay hadii aad sii wadaan beegsiga dowladda wadanka Iran waxay sameyn doonaa annaguna inaan farmuuqno halka ay madaxdiinu ku jiraan taasina ay keento adinkuna in xanuunka aad dareentaan si aad u joojisaan buu yiri laynta aad leynaysaan madaxda dowladda wadanka Iran waa fariin culus waana mid kamid ah fariimihii ugu cuslaa ee ka timaada magaalada Beijing ee wadanka Shiinaha madaxweyne Xi Jinping waxa uu si weyn uga careysan yahay dhowr talaabo oo ay qaadeen Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil tan ugu horeysa waa duulanka oo gardar ah cidna aan laga la tashan tan labaadna waxa weeye in Iran iyo Israa'iil iyo Mareykanka ay laayeen madaxdii ugu sarreysay ee wadanka Iran tan saddexaadna waxa weeye in wali maamulka gumeystaha iyo dowladda wadanka Mareykanka ay duqeynayaan goobihii rayidka ama markaas shidaalka dowladda wadanka Iran saddexdaas arrin oo isbiirsaday dowladda wadanka Shiinuhu aad ayay uga carootay waxaana ay wacd ku martay si buuxda Iran inay gacan u heli doonto hadii aanay samir qab ah dagaalka u wadin Mareykanka iyo xulafadiisa dowladda wadanka Mareykanka iyaduna marka iyo Israa'iil waxay si weyn uga careysan yihiin
in maraakiibtii wadamada reer galbeedka aanay gacanka Hormuz mari karin laakiin cid walba oo ay Iiraan ay u ogolaato ayaa mari kara matalan Shiinaha iyo Ruushka iyo Turkiga iyo Hindiya iyo Pakistan iyo wadamo badan oo gobolka ku yaala ayaa si raaxo leh ku mari kara laakiin maraakiibta wadamada Khaliijka iyo Mareykanka iyo reer galbeedka ayaana mari karin marka waana sababta u keenaysa ayaa la leeyahay in isnaacaan Mareykanka iyo xulafadiisa madaxweyne Donald Trump oo toddobaadyo kor isku dayay wadamada reer galbeedka iyo NATO inuu dagaalka soo gariyo iska daa wax kale xitaa telefoonada qaarkood kama jawaabin marka hawshu halkaas ay maraysaa dhinaca kale aan u nimaano Hamas iyo xaaladda oo imaan doona iyo duqeymo culus oo magaalada Gaza ka soconayo iyo dad badan oo lagu dilay iyo Hamas oo digniinta u dambeysay dareys laakiin dawladda wadanka Iiraan gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ayaa sheekooyin cajiib ah soo diray waxaana ay sameeyeen inta ay jabsadeen goobihii sirdoonka gaar ahaan telefoonada warbaahinta ayaa fariimo ku direen dabcan in aad fariin ku dirto goobaha warbaahinta hadda ogow ma aha sheeko sahlan laakiin waxa inta badan la yaab kale waxay tahay in waxay tusaysaa marka ugu horeysa ay jabsadeen hajabsadaan Muhammad samxay yiraahdeen waxa lagu yiri marka fariintan ciidanka ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa fariimo cabsi gelin ah telefoonada gacanta ugu diray dadweynaha Israa'iiliyiinta SMS kan marka ayaa waxa lagu sheegay in si degdeg ah ay uga baxaan dhulka Falastiin ayaa lagu yiri inta aysan ku dhiman gantaalada mid kale markii ugu horeysay fariimahan waxa lagu xaqiijinayaa oo Iiraaniyiintu ay ku xaqiijinayaan in uu dhintay ra'iisul wasaaraha maamulka gumaysta Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa lagu yiri fariinta Falastiin fariintan waa lagu qoray waliba afka cibriga ayaa lagu yiri Netanyahu waa uu dhintay geeridu way idin soo mar dhawaanaysaa dhawaan albaabada jaxiimo ayaa idin furmi doona ka hor inta aan dabka jahannamadu markaas ee gantaalada Iiraan aydan ku baabi'in ka baxa Falastiin ayaa lagu yiri si aad uga baxdana fadlan ama aad markaas u fahanto sida ugu bixi karto guji halkan ayaa lagu yiri qoraalka tani waa mid kamid ah fariimihii ugu qalafsanaa oo loo dirayo ciidanka ee markaas shucuubta gumaysto dabcan Israa'iil hadda dad badan ayaa ka qaxay bal meelaha qardooma lagu baxsanaya meelaha qaar xuduudada Masar iyo Urdun ayaa loo kala yaacay laakiin in hadda Iiraan ciidanka ilaalada kacaanka ay jabsan karaan xaruntii shirkadaha warbaahinta oo telefoonadooda oo dhan shacabka Israa'iiliyiinta looga diray message-kan dabcan waa message halis mid kale dadku way ogyihiin gantaalada dawladda wadanka Iiraan ee midkiiba markuu Tel Aviv iyo Akka iyo Qudus iyo Haifa iyo yimaado u 100 gantaal noqonaya waa garan karaan dadka mid kale halaaga ka soconayo dhulka xoog lagu haysto ayaa laftirkiisa argagax ku sii baaray marka lagu daray fariintana waxay noqonaysaa dab bensiin lagu shiday marka hawshu aad iyo aad bay markale u culus tahay waxay u badan tahay ayaa la leeyahay fariintan si dhab ah inay u rumeystaan shacabka Israa'iiliyiintu hawshuna halkaas ay maraysaa way adag tahay dhinaca kale waxaanu eegaynaa bal sheeko kale oo iyana cajiib ah fariimahan marka waxa la leeyahay la dirayo oo ay ciidanka ilaalada kacaanku ay dirayaan maxay ugu talagalayaan intee in la eg ayay rumaysan karaan shucuubta Israa'iiliyiinta dabcan way rumaysanayaan sida khibradu ay leeyihiin 85 waxaan isku dayayaa cid walba inay ka baxaan dabcan Israa'iil iyo Xisbullah inta badan shucuubta Israa'iiliyiintu fariimahooda ma dhagilsadaan waayo waa dad waxa ay sheegaan ka dhabaynaya dhan walba marka laga eego marka maadaama qofku uu haysto waxyaabaha dhiirigelinaya inay si degdeg uga baxaan waxa kamid ah marka laga soo tago dadkan inay geerida necab yihiin waa marka ugu horeyso horta dhulka way aaminsan yihiin in aan iyagu lahayn oo iyagu aanay ahayn dadka rasmiga ah wadankan marka hadii ay heli karaan intooda badan baasaboor ajnabi ay haysto oo reer galbeedka u badan marka qof uu heli karo meel uu ku noolaado iyo wadan raaxa uu heli karo ma jirto ayaa la leeyahay sabab uu dhimashada halkan ugu dooranayo marka dhamaantood waxay codsanayaan dawladaha ay baasaboorada ka haystaan ay codsi degdeg ah u dirsanayaan Masar bay tagayaan halkaas bay markaas ay ka sii tagayaan sida qaar kamid la leeyahay iyaga oo la soo baxaya ee dhalashadoodii wadamada kale qarinayana tii markaas Israa'iiliyiinta marka 80% wax ka badan waxa la leeyahay waa suurtagal shacabka Israa'iiliyiintu in albaabaha ay jabsadaan maxaa yeelay gantaalada iyo duqeymaha iyo waxa Iiraan ku sameynayso wax la arkay ma aha waxa laakiin dhinaca kale suuragal ma tahay Israa'iil iyadana in talaabo tan oo kale qaado oo ay shacabka Iiraan ama warbaahinta haday doonto u mariso waxa kale iyana la leeyahay shacabka ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iiraan maxay warbaahinta u mari waayeen oo afayeenkooda uu si rasmi ugu sheegay waxa la leeyahay taasi tan ka halis badan oo waxa la tusaya in sirdoonka iyo mukhaabaraadka dawladda wadanka Iiraan wax walba ay ogsoon yihiin marka laakiin banaanka waa ka sheegi karaan sida la leeyahay dhinaca kale waxa iyana suurtagal sida la leeyahay hal la qaxo xogaa maadaama ay marka ay wax caalamka hadda laga yaabo inta badan in xogaa si u yara diidaan fariimahaas hoose ayaa la isu marinaya oo hata hadii la rabo hadhow la diidi karo oo cid soo dirtay shaki badan la gali karo marka
laakiin dhinaca kale haddii aynu eegno dowladda waddanka ruushka ayaa iyadana hadal cajiib ah ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda waddanka ruushka ayaa iyaduna maalin ka hor waxay sheegtay in dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ay fariin adag u dirayso laakiin hadalkan hadduu maalin ka hor ahaa maxaan hadda u sheegaya dabcan warar kale ayaa soo kordhay waxaa dowladda waddanka ee ruushka sheegtay sida la leeyahay fariimo diblomaasiyadeed oo warbaahinta janalo kale ama kanaalo kale la maray lagu sheegay Mareykanka iyo Israa'iil inaanay duqeyn karin goobaha nuclearka dowladda waddanka Iran sababta dowladda waddanka ruushka waxay arintaasi dowladaha u sheegtay halkaas inay joogaan 1,000 qof oo reer Ruushiyaan ah oo waliba khubarada dhinaca tamarta nuclearka u badan sidaas daraadeed hadii lagu dhaco meeshaas la duqeeyo dowladda ruushka waxay si dhab ah u sheegtay hubka nuclearka ee maamulka gumaysto u haysana si dhab ah in loo duqeyn dagaalkana uu xumaan doono waxaan Israa'iil kula taliyay wuxuu yiri nin guri dhala ah ku jira nin banaanka jooga ama nin cawshad ku jira dhagax kuma tuure adiga hub nuclear ah loo haysta Iran way awoodaa goobahaas si baan inay u duqeyso marka wuxuu leeyahay cid ugu horeyso hadii nuclear la isku adeegsado dhibano noqonay waa adiga oo dhulka aad haysataan waa 2 kilomitir oo kaliya waa wax dhul aad u yar oo adiga dhanba hal qunbulad ayaa kugu filan dabcan isla sidan waxa yiri Stephen Witkoff oo ah ergiga dowladda waddanka Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Donald Trump u qaabilsan gobolka bariga dhexe wuxuu yiri Israa'iil dhulka haysto wuxuu yiri hal bam ayaa gabigiisu ku filan ayuu yiri sidaas daraadeed marka ruushka dignin adag ayay dareysay tan iyo wixii marka ka dambeeyay waxa la leeyahay Israa'iil xaalad waa ku lidata laakiin maadaama meeshu ay joogaan koox mutadarrifiin ah oo aad xaq jirin u ah oo aan naxariis lahayn isla markaana marka yuhuudnimadu ay madax martay waxa la leeyahay iyaguna xaalkooda waa liita marka waxa lagu yiri hadda dhimasho doonaysa waxa doontaan sameeyo marka taladaasna dowladda waddanka ruushka waa jeedinaysa waan hanjabaadii ugu dambeysay ayaa waliba lagu yiri laqad a'dara man anzir ninku digay kuma dirin waa loo raaciyay dowladaha waddanka Mareykanka iyo maamulka gumaystaha marka dagaalkan marka waxa la leeyahay Mareykanku mana joojin karo oo Iran ayaa bal maba joogsanayo dagaalkan ilaa in anagu joojino mooyaane shuruudeeni waa inaad sameeysan oo ahayd ilaa iyo hadda dowladda waddanka shuruudaasi kama tagin inaad magdhow ka bixisaan khasaarihii aad geysateen inaad ballan qaadana weligeed inaad Iran weerar doonin cunaqabateynta inaad qaadaan iyo sidoo oo kale to markaas inaad sameeysan inaad weligeed aad Iran weerar doonin cunaqabateynta inaad qaadaan iyo sidoo kale to magdhow inaad ka bixisaan marka waa saddex shuruudood oo dhamaantood aad iyo aad u liita madaxda khaliijka ayaa iyaguna isku dayaya wuxuu wada hadalaha dowladda waddanka in la gaaro oo Mareykanka telefoonada dabka ka riday laakiin Donald Trump wuxuu ku yiri war dad ba alidin ka dhigay wuxuu leeyahay dad iska dhigo oo inaad inta dulmigan iyo calaaqada iska deeysan wuxuu leeyahay weligeena inay difaaci jirnay mar kaliya oo aan jabnay hanagu weerarsaneen marka hawshu halkaas ay maraysaa wax dhinaca kale hadii aynu eegno maxaa ugu dambeeyay marka wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta qaarkood waxay warinayaan in dagaalo culus iyo duqeymo ay culus ay ka wadaan ciidanka ilaalada kacaanka dowladda waddanka Iran telefishinka kanaal 15 la yiraahdo ee maamulka gumaystaha Israa'iil ayaa isaguna sidoo kale waxa uu warinaya xaalad xun inay jirto waxa kale uu sheegaya duqeyn magaalada Gaza ka dhacday in markaas dad badan ay ku dhinteen arrintan waan u nimaanaynaa ama ka hormarnaba dhinaca kale waxa la leeyahay gentaalo ayaa sida uu sheegayo isla telefishinka 15 gentaalo laga soo tuuray dhinaca iyo markaas waddanka Lebanon ayaa iyaguna ku dhacay meel 55 kilomitir u jirta markaas 55 kilomitir gudaha ma 55 kilomitir maaha 115 kilomitir gudaha dhulka gumaystaha ah markaas u soo gashay marka Xisbullah waxaad moodaysaa duqeymo culus oo aad loola fajacay iyaguna qaaday dhinaca kale dowladda waddanka Iran weerar culus ayay qaaday in xogaga reer Lebanon ay hadda duqeynayaan 315 kilomitir meel jirta inay duqeynayaan waa musiibo ayaa la leeyahay oo markaas u soo gashay maamulka gumaystaha Israa'iil saaruuqdan waxay ka imaanayaan baa la leeyahay dhinaca iyo waddanka Lebanon xaalkan aad ayuu ugu liita xogaga gumaystuhu sidoo sheegayo telefishinka al-Arabi al-akhbar la yiraahdo waa hagaag dhinaca kale xogaga reer ee Falastiin Hamas ayaa iyaguna goordhow wacd ku maray in ay ka jawaabi doonaan hadii aanay joogsan duqeymaha lala beegsanayo magaalada Gaza dhowr duqeymo saaka lagu qaaday Gaza dhowr qof ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen waana arinta ay Falastiiniyiintu ka hadlayaan Hamas ayaa wacd ku martay si dhab ah in dagaalka ugu biiri doonto hadii aan si degdeg ah ugu joogsan dulmiga iyo markaas falalka gurcaan ee maamulka gumaystuhu ay markaas ka wadaan magaalada Gaza toddobaadadii u dambeeyay Israa'iil Gaza duqeymo culus ayay ka waday inkastoo aanay warbaahinta si toos ah u soo gaareen xataa waxa jirtay dhowr maalmood ka hor 8 saraakiil oo booliska Hamas ka tirsan oo magaalada Gaza in la dilay kuwa karan ay la dhaawacmay laakiin fariimahan hadda Hamas ka soo baxay ee Falastiiniyiintu waxaad moodaa dignin culus inay tahay dhinaca kalena hadii dagaalkan uu sii kulaadana ciidanka Israa'iil ku jira magaalada Gaza iyaguna waqtigood ayaa dhamaaday sida la leeyahay marka gobolka oo dhan in uu ololi doono ayay u badan